wasiir waxaan ku weydiinayaa magaalada Bandarbayla waa magaalo weyn dadka ku nooli 20 kama yara iyadoo eeriyadeeda waxa la geeyay 6 seejo afar waxa la dhigay magaalada Bandarbayla labana waxa la dhigay dhuudo ma qaadi kara 20 6 seejo ma ka codayn kadha horta wixii seeja dhigideeda waxa iska la gudiga doorashada isaga madax banaan waa arin farsamo isaga inuu xil saaranay laakiin caadiyan seejooyinku criteria ay leeyihiin marka meeshii loo arko in ay seeja ka badan inta u baahan tahay waa wax la kordhin karo wax dhiba ma waa wax la kordhin karo gudiga doorashada loo sheegi karo marka bayla hadii ay loo arko in inta ka badan ay qaadi karto dhima laha waa la kordhinaya taas waa sidaas weey maxaa diiday in laga dhigo open list oo nidaamka la furo oo beel muddo 24 sano ah ama intii Puntland jidhay aan matalaad lahayn baarlamaan xukuumad iyo heerar kala duwan golayaasha ee hesho matalaada horta sidaas ma aha nidaamka close listiga iyo openku waa laba system oo la kala doorto inaga hadda shuruucdii doorashooyinka waa la sameeyay waa la meel mariyay waa gudbeen baarlamaanka ansixiyay doorashadana waa lagu galay nidaamkeena doorashada ayaa sidaa sheegaya macnaheeduna ma aha in cid gaar ah uu calaamadsan yahay ururo siyaasadeed baa lagu tartamaya iyaga dadka soo sharaxaya iyaga soo qoraya dabadna sidaas ay dadkuna ku dooranayaan marka wax cid u xiran ma aha taas waa nidaam doorasho oo ay leenahay weeye nin odayaa jira hadda markii committee qabanayay oo erey qowsaar la yiraahdo soo qaatay oo ah inaan ugu yaaray horta taa waxaan rabaa inaan maadaama odayga nabadoonkii soo qaaday ereyga qowsaar anigu horta midaan adeegsaday maaha ereyadayda ka mid maaha haddii aan dhahana waxaan dhahana recordkay ku jiraan haddii aan dhahayna iyadoo dacalka la is haysto iyo ereyga ereya arka lahaydeen marka nimaanu siyaasadda in saaxiibka iyo reer magaalada siyaasadda maaragtay ay la wararaysay ayaa ereyga siyaasadda markuu ka sii baxayay tuuray markii ugu dambeysayna wuxuu yiri waxaan ka bixinayaa raali gelin buuxda marka aan si public u hadlo marka arinta waxaan rabaa recordka inaan dhigo ereygaas aan uma dhihin odayaashuna qowsaarna ma aha waa nabadoono iyo ugaal waa mahadsantii waxaan weydiinayaa wasiirkayga qaaliga wasiir Juxa mar walba oo doorasho qof iyo cod la soo hadal qaado ama la dhod Puntland bay ka dhacaysaa shaki weyn baa gala dadka ruuxa talada haya ama madaxweynaha dadku waxay ka cabsi qabaan inuu ajenda kale ka wato إلى مدحونا فرولا إلى مدحونا دني تذكر شكي بقبان اللي هي ما جدك له وتام مدحونه أما مركو متقنا سنة كوجودهم بيو كلا إن الدورشة اللي سودت تشيو وقف يعود بالقمانية. horta ajan dadka loo doorashada laga leeyahay oo aan ahayn dadka reer Puntland inay doortaan cidii ay matali lahayd oo golayaal deegaan wadanahooda ka shaqeeya ajanda aan ahayn ma jiro doorashada tan dawladana waxay bilowday dhowrkii bilood ugu horeysay la bilaabay doorashadan la sameeyay sanad ka hor baa la sameeyay doorashooyinkii saddexdii degmo barnaamij muddo socday buu ahaa waxa la bilaabay ma aha ujeedada laga leeyahay waan ahayn dadku inay doortaan dadkii matali lahaana ma jirto doorashada waxa haray sanad iyo wax baa dawladda u haray ma ku dhameystiraysan oo ma idin qorsheysan tahay sanadka ina ku dhameystirtaan doorashada ma sameesha joojisaan bay idin kaga dhamaanaysaa oo aad ku soo dhaweynaysan dawladda idin xigtaa dabcan horta dawladnimaduba waa qoriisu dhiib horta wax qof maanta ka wada jawaabaya ma jiro laakiin anaga hadda waxaan ka shaqeynaa doorashadii golayaasha deegaanka shuruucdeennuna waxay qeexaysaa ama ay dhigaysaa sida doorashadaasi ay u dhacayso marka talowba maalinteeda aan gelaynaa hadda waxaan ka shaqeynaa tii golayaasha deegaanka su'aal kale waxay ahayd doorashada golayaasha deegaanka ka bacdi maxaa ku xiga Juxow doorashada golayaasha deegaanka aynu horta qabanno iyaga aan gallo iyaga hadda miiska inoo saaran gudiga doorashada taas uu sameeysan yahay taas aynu hadda u diyaar garoobaynaa diiwaan gelinteeda maalinta aynu dhamayno ayaynu salaadba waqtigeeda la tukada baa la yiri su'aasha kalena aynu gelaynaa laakiin shuruucdeenu way sheegayaan oo mugdimo jiro sharcigeena doorashada meesha doorashada ay u socoto iyo waxay qorayso midna sidaan ognahay degmooyin cusub oo badan ayaa ku soo biiray degmooyinkii xilligii dawladda Soomaaliya degnimada qaadatay maxaa dawladda Puntland uga qorsho ah
arrinta xuduudaha degmooyinka Puntland degmooyinka cusub talada waxa weeye horta in la joojiyo degmo cusub oo dambe in la sameeyo waayo ku horaan dib ku qabnaa kumana inaan sameyn wax xigmada iyo wax sharciya midna dibna way abuureen khilaafna wuu ka iman karaa mana qaadi karaan hadda dadku ma qaadi karaan golayaal deegaan meelo wada yar yar ah 720 xubnood qaadi kartaa ma jirto anu waxaan qabaa doorashadana haday dhacdo inay kulligan 10 noo noqon doonto waayo lama xamili karayo marka degmooyinka aynu iska bixinayno oo aan kala googoynayno dib baynu ku keenaysaa dhulku waa iska dhulkii aynu lahayn wax kale oo maaragtay cusub ka soo kordhaya ma jiro geedigaas raali baanu ka nahay qof iyo codka waa rabnaa hayeeshee waxaan rabaa xilliga la qabanayo in wasiirku noo sheego oo seejada la gelayo su'aashaan wataa doorashadu waxay dhacaysaa diiwaangelintii waxay dhacaysaa hooyo 13 bisha December ee ku soo socota guddiga doorashada shaaciyay maanta dabadeedna waxa dhici doonta iyadana waxay socon doontaa 2 bilood meelaha ku dhawaad bay socon doontaa 45 bari maan filaya dabadeedna waxa la gali doonaa doorashadii kale iyaga shaacin doona guddiga sheegi doona laakiin mar haddii diiwaangelintu dhacdo doorashaa ku xigta waxaa seejooyin la geeyay gobolka Sool iyo gobolka Cayn gaar ahaan degmooyinka Buuhoodle Taleex iyo Boocame sida muuqatana amnigoodu gacanta dawladda kuma wada jiro si buuxda sida uga dhici kara yani doorasho badqabkeedu sareeyo oo fuul ah doorashadu waxa la soo dhajiyay 37 degmo oo Puntland kamid ah ay ka dhacaysaa 9 gobol way ka dhacaysaa xaqiiqaduna waxa weeye meel kasto oo ay suurtagal tahay maalinta doorashada la galayo inay ka dhacdo ay ka dhacaysaa meel kasto waqtigu saamaxo ama duruuftu saamaxdo ayay ka dhacaysaa waxa ka soo horjeeda dad fara badan oo siyaasiyiin u badan dawladda maxaa u diidan inay furto shir dib u heshiisineed oo lagu xalinayo caqabadahaas jira waxna la isku fahansiinayo موضوعاني ومشروع أي ذات كريد بنتلان ودليهن عد قاروا له مشروع مركز دورشة إن لقلوا ذات كتلا كريد بنتلان إليه ويه عدي فكر كجد استنقبته وقبته إن دورشة لقلين إن يتهي تلافي عن ولا لقر نقصنا يا وأنا لقل الدودية الباب كانوا وافريه وأنا الله ذات كبا marka albaabkaas in laga wada hadlo oo wax ku saabsan qadiyada reer Puntland wax la iska weydiiyo waa tala furan weeyo oo dadka reer Puntland u taala in la isqanciyaan la rabaa cidii fakar kala qabta 24 sano ka bacdi cidii wali qabta in meeshaan la sii joogo waxaan leenahay kala nagu qancinaanaga hadii kale anaga ku qancinayne dadka badan raac maxaa seejooyinka loo sameeyay iyadoo aan la tashan bulshada seejooyinka horta waxa sameeyay guddiga doorashooyinka ayaa iska leh talalaana ma aysan samayn way tageen wasaaradda arrimaha gudaha soo jeedin soo samaysay taasay ku hawlgaleen meelihii oo dhan bay tageen dadkay la soo kulmeen dabadna seejooyinkay dhigeen wixii ka soo noqdana waa ka soo noqonayaan meel kasta oo khalad waa dhici karaayo waxa waa la istusi karaayo meel waa laga tagi karaana taladeedii mar walba waa lagu jiraa laakiin cid iska riyoota wax meel iska dhigtaa ma jirto geedigan geedi caanana la yiraahdaa khayr baan niyada loo sheegayaa marka ma firayna wax dhibanay dhacayaan wixii tabasho ah iyo wixii wada hadal ahna dadka waa laga hadlayaa dadku talada iyaga leh dantooda ku jirta ayatiinkooda ku jira dood la wada leeyahay weeye mana la ramo in looga daro marka waxaan rabaa in khayr laga filo waxna laga xalliyo wixii tabashaha jira talayna ka dhaxaysa weeye aad baa u mahadsantihiin